Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. China markaad maqashid badalkan waxaa maskaxdaada ku soo degdegay inay dadkiisu yihiin dad aad u fara badan iyo dal taariikh dheer leh. Haddaba muuqaalkani waxaanu kaga hadlaynaa dhowr macluumaad ama xog ku saabsan China. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Anigoo Maxamed Cali, halkan nagala socotaana waa GARAADSHE. Dadka ku nool China waxay aaminsan yihiin diimo dhaqamood, halka diimaha ugu badan ay aaminsan yihiin ay tahay Buddhismka iyo Taoismka iyo Kiristaanka, halka ay 80 milyan ay aaminsan yihiin diinta Islaamka. sanadkii ugu dambeysay China waxay gaadhay halkii ugu fogeyd ee dayax laga gaadhay, taas oo ah dhinaca ka sii jeeda dhulka. dayax gacmeedkan gaadhay ayaa lagu magacaabaa Change E4, kaasi oo saameynaya in ay nolol ka jiri karto dhinaca kale ee dayaxa. Kubadii ugu horeysay amba kubadda cagta waxa alifay dadyowga China, taasi oo markii ugu horeysay laga sameeyay haragga xoolaha. kun sagaal boqol iyo 12 xilligaas waxaa la aasaasay Jamhuuriyadda China. Madaxweynihii ugu horeeyay ee xilligaasi qabsada ayaa lagu magacaabi jiray Yumashi Kai, oo markaasi kaliya ugu horeeyay madaxweyne ku meel gaadhkii Sun Yat-sen. China waa halka ugu badan ee laga cuno hilibka doofaarka. Dadyoogiisuna waa qaar cuna hilibyada laga gaabsado amba cunooyinka aan la cunin. China waa dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Dadkiisuna waa dad aqoon leh. Dalkiiba 94 dalkiisu waa dad aqoon leh, laakiinse maxay kaaga taala? Dadyooga muslimiinta ee Chinese-ka ah waxa loogu geystaa dhibaatooyin fara badan. Ragga ayaan loo ogolayn inay sii deystaan garhka, halka dumarkana aan loo ogolayn inay qaataan xijaabka, iyo in aanay soomi karin. xilliyada qaarna dhibaatooyin ay kala kulmaan booliiska. derbiga weyn ama derbiga mucjisada ay ku yaala China waa Great Wall. lama garanayo sidii loo dhisay, laakiin dhererkiisa ayaa waxa lagu qiyaasaa 5600 mayl. sababta loo dhisay ee ugu weyneed ayaa waxay difaac, waxaana sanad kasta soo booqda malaayiin dalxiisayaal ah. qoysaska Chinese-ka lama ogola in ay hal carruur in ka badan ay dhalaan amba ay haysan karaan, laakiin sharci kale oo soo baxay 2015 ayaa sheegaya in qoys waliba haysan karo 2 carruur. dalka China waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee alifa warqadda wax lagu qoro, taasoo la sheegay inuu alifay Sign Law. muuqaalkiina maanta intaa buu naga yahay. waa anigoo Maxamed Cali, halkaan nagala socotaana waa GARAADSHE. fadlan muuqaalkana dadka heshay like saar, kanaalkana ku soo biir oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaal kasta oo bartan soo dhigno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.